السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جمعة وناكسن أصحابتا ميل والبا عالم كاد كجوتان وولالكينا عبد الرحمن ور أبو كر waxaan rabaa in aan waxyar update aadin ka dhigo aan idinla socodsiiyo meesha ay xaaladdu marayso iyo dhamaan waxaan rabaa in aan idinla socodsiiyo sida ay wax u socdaan iyo meelaha ay wax marayaan sidaad baryahan aad la socoteen waxaa jiray arrimo siyaasadaysan oo ka socday gudaha Soomaaliya iyo dibadiisaba iyo faragelinta shisheeyaha ay ku hayaan gudaha dalka Soomaaliya laga soo bilaabo markii uu bilowday khilaafkii carabta dhexdooda waxaa soo shaabaxday faragelin qaawan in dowladda Imaaraadka ay ku hayso gudaha magaalada gudaha Soomaaliya ayadoo u kala yeeraysay ama u carab laadinaysay hogaamada ka jira Soomaaliya ayadoo markaasi rabta in ay ku sumcad disho dowladda federaalka markii uu khilaafkii uu soo shacbaxay u dhaxeeyay qaliijka oo dowladda Soomaaliya ay dhexdhexaad ka noqotay dowladda Imaaraadka waxay bilowday faragelin qaawan in ay ku samayso gudaha dalka Soomaaliya waxay arinta ay soo socotay arintaas waxay ahayd arin diblomaasiyadsan balse hadda waxaa dagaalkii soo galay meediyaha ama warbaahinta khaliijka habeen hore iyo toddobaadkanba warbaahinta waxay bilowday in ay shaaciso waxyaabo lid ku ah dowladda Soomaaliya sharafka iyo karaamo iyo cizi iyo intaba madax banaanida Soomaaliya inta sharaf dhac ku ah in ay baahiso maqaalkii ugu saameynta badnaa mawduuca uga dhigeen farmaajo wuxuu baabi'iyey waa dilaaga jiilka Soomaaliya ama caruurta Soomaaliyeed maqaalkan waa maqaal dheer ah ay uga hadlayaan xagga dhaqaalaha ciidanka iyo midnimada iyo qabaa'ilka waxay arkayaan carabta waxay arkayaan meesha anagu aan ka dhibanahay taxakumul qabaa'ilka si aad uga hadleen waxay rabaan in ay kicin qabaa'ilnimo inay sameeyaan waxay haddana ay soo qaateen muuqaal ay ugu magac dareen Soomaaliya fi yadi khadar ama fi dimmat khadar Soomaaliya waxay gacanta ugu jirtaa dowladda khadar waxaa soo albayaan saxaafadan waxaa la lahaa albayaan ama wargeyskan wuxuu ka soo baxaa Imaaraadka waxaa la lahaa albayaan sidoo kale waxay soo qaateen abaartii ugu xumeyd ee Soomaaliya ka dhacday 2011 abaartaasay soo qaateen muuqaalo oo bahdalaad ah oo dhibaatadii sidoo kale waad ujeedaan waxaasoo dhan waa si oo aan media oo aan professional ah oosan wax uga diyaarinin ayay dowladda Soomaaliya ay wax uga diyaariyeen taasna waxay ku tusaysaa sharaf dhaca iyo karaamo dhaca ee annaga ay nala rabaan aanay nala maagan yihiin maahan taageeridda farmaajo inay tahay wax oo shakhsiyan maahan waa wax mas'uuliyad oo qaran ah maadaama madaxweyne Soomaaliya uu yahay maadaama ummadaas oo hormuud oo u yahay sharafkeeda iyo karaamadeeda oo hormuud ugu yahay ninkii wax u dhima Soomaali ayuu wax u dhimay ninkii wax u dhima Soomaali ayuu wax u dhimay waxaa kaloo idin tusayaa aad indhihiina aad ku wada arki kartaan waxaad indhihiina aad ku wada arki kartaan qoraalada ee baraha Twitterka ay soo dhigeen qaar ka mid ah Allahumma yarham wanqud min hakim adh-dhalim waa gabar oo carabiyad ah waxay ka hadlaysaa siyaasadda Soomaaliya ayay ka hadlaysaa bal ka war waxay ku hadlaysaa wuxuu ku leedahay xaakimka dhaalimka ah yaa u sheegay anaga dhibaatada aan qabno Somali want to farmaajo out annagu haddaa farmaajo ceerinayn iyo hadduu nala joogayo ma gabar Imaaraadka joogta annaga aan noo doorayso
nooma doori karto kayg waxay ku leedahay dameerlaha wuxuu dhex marayaa biyo dhexdiisa fiiri shimaali muqdisho kayg Somali prime minister ay ku taagaraysay kor ilaaha idinku dhaariyay xilligan maa la joogaa sawirada la baahinayay dhibaatadan maa soomaaliya ka jirta hadda kama jirto kayg ra-iisu somaal kawra dhibaatadeen ugu haya nimankan arag كل أكثر حاجة في الاتفاقيات التجارية في الموانئ وأن يخطي الإتراك والخضريين يساعدون على البقاء في سلطنة أكبر وقت ورد يأثر على شعبه لغاية ما وصل للمجامع للمجاعة كيك وحاسة رجلها هذه كلها ريه أرك واللي هذه كلها ريه ما كان أرك نقوم حين قربان كوان كنا إيو وحين أننا إسكاله هذا جاجو دمانينو haddii ay dhibaatana haysato wax walba haddayna haysato annagaa baahidaas annagaa qabna laakiin inay carab oo joogta imaaraadka ama qaliijka jooga in xilligan oo sawiradan la baahiyo daruufta keeni karta maxay tahay arag farmaajo out gabar oo Dubai joogto ma annagana leedahay farmaajo out lama dhihi karto annagaa shalay dooranay baarlamaankeena noo dooray waxayna noo dooray annaga dhexdeena is haysan karna maayne annaga dad shisheeye ah dhexdeena ma soo geli karo farmaajo waa madaxweyneheena wuu nala joogayaa gabar Dubai joogta kama hadli karto wiil Dubai jooga kama hadli karo arag waa warbaahintooda waxa wax qoray arag أصبح شعب الصومال في المجاعة تأمل في الرئيس الصومال هاي وحن أرك إلى هذه كلها أرك أرك مركا annaga maxaa nooloo baahaya marka doorka annaga aan ka qaadan karno shacab ahaan maxay tahay war shalay haddaad mucaarad ku ahayd farmaajo maanta taageer maxaa yeelay gabar imaaraadka joogtaa waxay ku leedahay farmaajo out ha baxa farmaajo laakiin waxay ilmaamsan yihiin carab waxay hilmaamsan tahay soomaaliya inaysan never give up ay isdhiibaynin cadow walboo ku soo duula dhibaato walboo ku dhacda baahi walba oo ku dhacda waddankeenna inaan annaga aan uga dulqaad badannahay ayaga inaan uga dulqaad badannahay kan mucaaradka shalay ku ahay farmaajo dad badan asxaabta ah markaa farmaajo sawirkiisa soo geli waxay dhahay shalay mucaarad ayade maanta maxaad ku muxaafaday shalay anigu shakhsiyan aan u mucaaradayay ama aan u dhaliilayay laakiin maanta in gabar imaaraadka joogto ee dhahdo farmaajo out kama yeelayno kamana qaadanayno meedi imaaraadaan cayn karin madaxweynaheena wax ka sheegi karin maxaa yeelay sharafkeena iyo karaamadeenna uu matalaa wallahi haddaad shalay naceeb aad u qabto maanta jecel u qaad maxaa yeelay walaalkaaga cadow ha uga hiilinin cadow walaalkaaga ha uga hiilinin yaana annaga dhexdeenna awood aan isku yeelanin wallahi maanta waxaan ogaan lahaa haddii ay gabadhaas ay soo qori lahayd gabadhaas soo qortay farmaajo out ha baxo farmaajo kaak ra-iisul soomaali kaak gabadhaas haddii ay maanta ay soo qori lahayd qabiil ka mid ah qabiilada soomaaliya wallaahi bilaahi talaa nacladaa lagu tufi lahaa waa la nacladi lahaa waa la buunbuunin lahaa wax walbaa la sheegi lahaa laakiin gabar oo Dubai joogto inay ku dhahdo madaxweynaha Soomaaliya wuxuu baabi'iyaa carruurta ha ka baxo waddanka annaga madaxweynahooda ma dhihi karnaa waddankooda ha ka baxo ma dhihi karno awoodna uma liin laakiinse annaga waddankeenu dhahaya madaxweynuhu ha baxo maaha wallahi wax loo dul qaadan karo wax laga dhegeysan karo maahan caraba haddii dagaalkeedu uu saan yahay annaga xabasho oo idinka tun weyn oo idinka dhimasho jecel annagana gumaysan waaye idinkuna waxaa rabtaa inaad meediyaha naga gumaysataan habarteeday tahay nagama hadal badisaan waxa waa haddaad leedaha daruufaa haysa dadkan baahiyaa la dilootay wallaahi waa isla qab weynahay
waa iskala qabweynahay waxa idinka aad dhoodhoobaysaan oo meediyaha aad ka caytamaysaan iyo sawirada aad baahinaysaan inta waa iskala qabweynahay waxaan ku qanacsannahay amarka ilaahay ay nagu dhacay shalayta kama qabno ilaahay ayaa saan noo qadaray ilaahay ayaa nagu imtixaamay shalay idinkoo saan ka baahaysan oo ka dulaysan inaan annagu aan ahayn dadkii idinku soo horgurmaday oo idin quudinaya sakawaadka idin keenaya heerkaasna ilaahana gaarsiiyey maanta inay dadkeena biyo la'aan noqdaanna ilaahana gaarsiiyey ilaahay biyo nooma weynin wuu nagu imtixaamayaa laakiin waan ku sabraynaa waan ku adagnaa islaamnimada dhaqankeena weli waa ku adagnaa laakiin waxaad hilmaamsan tihiin shacabka soomaaliya inuusan ahayn shacab aan quusan ma quustaan ayadoo magaalada muqdisho 300 maalintii la aasayo ee xabashana gumaysan weyse ee xabasho ku amar taagleen weyse 300 la aasayay 2007 2006 xamar waagaan joogay 300 maalinta qabriga la dhigay isbitaalada dhaawacyada way buux dhaafiyeen marka gabar imaaraadka joogta inay anaga maanta noo soo qorto madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo ha baxo caruurtoo laaya imaaraadka waa kan caruurta ku baabi'inayo Yemen Sanca waa kuwan diyaaradaha ku duqeynayo yaa ka hadla qof ka hadasha mala marka waxa loo baahan yahay Soomaaliya war inaan dadnimo aan isku yeelno in aan damqasho lahaano war wixii dhexdeena annaga aan isku haysanno gadaal aan u dhiganno cadowgeena hal dhinaca uga soo jeesano anu waad dhaleeli kartaa waxaad iga sheegi kartaa wax walba aad kartaa xaqa igu leedahay walaalkeeta walaasheeta xaqa igu leedahay wax waad iga sheegi kartaa laakiin markuu qof saddexaad meesha soo galo shisheeye ah imaaraad waa naga shisheeyo marka in aan madaxweynaheeni aan garab istaagno oo aan u muujino jacayl nacaybka ayga muudinayaan mid ka daran in anaga aan muujino oo jacayl ah oo aan madaxweynaheeni anaga waa ku qanacsanaa wuxuu yahayba laakiin haddii aan anaga dhexdeena cadowtinimo iyo isku sii muujino iyo kala fogaan waxa meesha imaanayso inuu cadowga uu naga faa'iideysto waxa laga yaabaa dad mas'uuliyiin ah inay dhageysanayaan barnaamijkayga ama si toos ah oo la socdaan ama ay maqli doonaan odayaasha hoggaanka ahaa ee maamul goboleedyada adeerayaalow waan idin bariynaa waxa qaraabo kartaan waad qaraabateen waxa aad wax raadsan kartaan waad raadsateen adduunkan adduun lagu waarayo ma ahan waa adduun laga tegayo waxaad maal tacbataan waa laga tegayaa ilma adeerayaalo waa idin baryeena waa dhalinyaradiina waxa idin hadlayso waxa idin baryayso waa wiilashiina waxa idin ka codsanaynaa in aad amarka dawladda federaalka aad uga dambaysaan inaad amarka wuxuu dhaho in aad ku raacdaan aad ku taageertaan carab ha u jabinina Farmaajo wallahi carab yaan loo jibin Farmaajo ilaaha idinku dhaariyaana carab loo jibin Farmaajo Cabdulla Gaas la hadlaya waxaan la hadlayaa Xaafan la hadlaya waxaan la hadlayaa Shariif Axmedoobe dhammaantiin yaana loo jabinin carab Farmaajo dawladda dhexe yaana loo jabinin carabtan wallahi inaysan idin kala jecleen wallahi aan ku dhahay inaysan idin kala jecleen danahooda iyo aayahooda ka tashanayaan marka waxa idin ka codsanayaa madaxda maamul goboleedyada in ay uga dambeeyaan arrinkan dawladda federaalka ayna ku taageeraan marka maadaama ay dagaal media xagga mediaha ay bilaabeen aysan ay mediaha ay u buunbooninayaan waxa idin ka codsanayaa inta social media isticmaasha idinkuna in aad shacabkiina iyo magaalooyinkiina aad buunboonisaan aad tustaan sawirada ugu quruxda badan inaad soo saartaan waa maxaa garato dadkan waa dad liita waa dad juhala ah dagaalka ay dawladda kula jiraan mid la mid ah waa in ayaga la galnaa oo aan faafinaa sawirada ugu quruxda badan deegaanada Soomaaliya waxaan diyaariyay markaan arkay dagaalka ay meediyaha kula jiraan intii awoodeeda iyo taagteeda ah waxaan diyaariyay farshaxankan ama photoshopkan aan diyaariyay waxaan ku qoray Somalia not for sale
soomaaliya laysa lilbaaci. sawirkan magacayga kuma qorin, waxna kuma xardhin. qof walba oo soomaali ah oo social media isticmaal ah waxaan ka codsanayaa in oo sawirkan coverka kore oo soo saarto oo dhaho soomaaliya not for sale. sharafkeena ma iibsan kartaan, dhulkeena ma gadan kartaan, dadnimadeena ma iibsan kartaan. wallahi inaysan carabna gadan karin oo america aysanna gadan karin, qof oona gadan karin ay jirto. waxaan u madax bannaanahay dhulkeenna, waxaan u madax bannaanahay dadnimadeenna. haddii duulaan walba ay nagu soo qaadaan, imaaraadku wuxuu hayaa soo daayo. marka waxaan idinka codsanayaa in aad sawirkan aad isticmaashaan. waa idiin soo dhigaya, waa idiin soo public garaynayaa, idinkuna in aad saarataan maxaa la dhahayay bejajkiina iyo facebookyadiina. wax magacayga kuma soo qoraayo in aanay sameeyey, waa free, qof walbaa isticmaali karo. dhammaantiin waxaan idin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo saaxiibkii liibaan holos wuxuu yidhaha ooyin saaxib. may wallahi liibaan big boss oohin igama ahan iyo calaacala igama ahan. kulley hadda mediaha le ka dagaalamayaan moogtahay, weli baasha xabad ma gaarin. marka waxaa waaye mediaha dagaalka ay ka wadaan mid lamid a inaa anagu aan galno waa dagaalka inaa anaga laba jibaarno waay. dagaalka ayagu ay wadaan mid lamid a inaa anagu aan laba jibaarno waay. dagaalka ayagu ay wadaan liibaanow big boss inaa anagu aan dagaalkaas aan laba jibaarno oo aan dagaalkaasi aan u tusno weji kale oo positive ah. maadaama ayagu ay faafinayaan maqaalo oo aanan fiicnayn ama sawiro aan qurqurux badnayn, in aan midaas mid lamid ah anaguna aan faafino oo deegaanadeena, nololkeena quruxda badan, dowladeena aan taageerno. fahmaysaa? laakiin haddii aan dhahno shalay ani mucaarada ku ah farmaajo, maanta ma taageerayo, micnaheed maa farmaajo waa madaxweynahaagii. farmaajo waa madaxweynahaaga, qof diidan ma lah. mucaaradkee soo qorayo, muxaafadkee soo qorayo, intaba waa la wada qorayaa. shalay haddaad mucaarad ku ahayd, maanta muxaafad. maxaad ku muxaafadaysaa? waxay tahay waa cadow shisheeyaa imaada meesha, qof saddexaada imaada. qof saddexaad oo meesha imaado waa inaad taageerto oo taageero aad u muujiso. marka waa inaa anaga dhexdeena taageero isku muujiyo. laakiin anaga haddaa cudud wallahi waxaan ogahay maanta haddii ay somaliland iyo puntland ay isku dhici lahaayeen waa la bomboonin lahaa, waa la qaadqaadi lahaa. haddii puntland iyo galmudug ay isqaban lahayd waa la qaadqaadi lahaa. jubbaland iyo koonfur galbeed haddii ay isku dhici lahaayeen hadalkan waa la bomboonin lahaa. annagaa isku tun weyn. haddii oo farmaajo iyo isqabtaan cabduuligaas waa la bombooninaya. axmed madoobe sidoo kale waa la bombooninaya. shariif haddii oo weerar lagu qaado oo dowladda qaab siyaasadeed ay ku wareegto waa la bombooninaya. laakiin bombooniskaas waxaa kaaga qiimo badan oo kaaga ajir badan in aad waddankaaga midnimadiisa aad difaacdo, oo aad ku difaacdo hadal, aad ku difaacdo aragti, aad ku difaacdo qoraal, aad ku difaacdo sawir, aad ku difaacdo. intaba saddexdaas position ayaa kaaga bannaan in aad dalkaaga aad difaacdo. maxaa yeelay nidaamka hadda jiro oo madaxweyne farmaajo oo madaxweyne ka yahay waa dhaliil wuu yeelan karaa. waxa dhaliilsan waa adiga, maahan gabar joogta imaaraadka ma dhaliilsano. waxa dhaliilsan farmaajo waa adiga, wuxuu madaxweyne u yahayna waa adiga, waxa diidi karna waa adiga. laakiin in gabar kaloo joogto ama wiil kaloo joogo imaaraad ama qaliij joogo inuu dhaho farmaajo out, ha baxo farmaajo. ma farmaajoa madaxweyne u ah? annaga boqortooyadooda oo 30 sano dhisan maa ka hadli karnaa? annaga kama hadli karno, war xaqiiqda laisku sheego nin ilaaha laga baqo. wallahi bilaa inaa sharafnimada dadnimadeenna waan baahannahay, bakti looma cuno. haddii ay baahi ay jirto, baahi weyba jirtaa, soomaaliya baahi way ka jirtaa. laakiin inta aan noolnahay inaan dhareerka aan iska tirtirno, intaan noolnahay inaan dhareerka aan iska tirtirno. saaxiibkii liibaan wuxuu leeyahay cabdigaas wuxuu yidhi farmaajo waa tuug. waa sax, laakiin aduu tuug kuu yahay, laakiin wiil imaaraadka jooga tuug maaha. aduu tuug kuu yahay. marka saaxiibkii liibaan holos wuxuu yidhi haddaba maxaa xala? xalka keliya aan isku difaaci karna waxay tahay, aan isku difaaci karno oo dadnimadeena aan ku difaacan karno oo sharafkeena aan ku difaacan karno
sida ay anigu aragtideedu ay tahay inaan dhexdeena aan midnimo aan muujino, in aan anagu dhexdeenna aan midnimo aan muujino. midnimadaas waxay ka tarjumaysaa dadnimadeenna, in aan iska diidno wax walba oo dibadda noogu yimaadno, in aan taageerno dowladdeenna, in aan taageerno xukuumaddeena, sax iyo qaladba inay ku taageerno. xilligaanoo kale markuu dagaal oo gacan saddexaad oo jiro, sax iyo qalad inaan dowladda aan ku taageerno. hadday go-aan qaldan qaadato xataa inaan dhaanno nacam waa taageersannahay, hadday mid saxan qaadato ilaahay waafajiyana waa taageeraynaa. mid walba tilaabo walba ay qaada inaan ku taageerno, maxaa yeelay gacan saddexaad oo cadow a meesha ku jirta. gacan saddexaad oo cadow a ku jirta, marka waa in midnimo la muujiyaa. wiilka waxaan la hadlayaa wiilka jooga somaliland, waxaan ka hadlayaa wiilka jooga puntland, waxaan la hadlayaa wiilka galmudug joogo, wiilka muqdisho joogo, wiilka hirshabeelle joogo, wiilka koonfur galbeed joogo, gabadha jubbaland joogo. dhammaan dhalinyarada soomaaliyeed inta wax fahmaysa, inta caqligooda saliimka yahay, waxaa idinka codsanaya si soomaalinimo leh in aad arrinkan aad ka dhidhisaan, aad u istaagtaan inaad dowladdiina aad taageertaan. sida ayaga ugu fududahay gabdhaha jooga imaaraadka iyo wiilasha jooga khaliijka, sida ay ugu fududahay inay dowladdeena u hayaan, annagana ha noogu fududaato inaan madaxweynaheena aan ammaanno, in aan annaga aan ku qanacsannahay waxa ay noo meeriyaan, in aan waxaan qaadan karin ahayn, in aan waxaan qaadan karin in aysan ahayn. wallahi inaanan ka yeelaynin gabar imaaraadka joogto, wiil khaliijka joogo inuu farmaajo caayo. laakiin adigu waan kaa yeelaya aniga, haa waa shame on you dhe farmaajo haddaa rabta adiga, haa waa madaxweynahaagii, adaa dhaliili kara. laakiin wiil imaaraadka joogo ma dhaliili karo, waxna kama sheegi karo. wallahi inuusan waxba ka sheegi karin wiil jooga imaaraadka ama jooga maxaa lahay khaliijka. ne soomaaliya waxaan isku sheegno 28 sano dagaal, fidno, balaayaan ku jirnay. intaas waxaan ku ahayna raali, laakiin in nala bahdilo oo sharaf dhac oo nagu dhaco wallahi cidna ugama qaadanayno, cidna kama yeelayno. walaan cidna ka yeelaynin, walaan carabaan ka yeelaynin, walaan cajabaan ka yeelaynin, qofaan ka yeelayna ma laha. marka waxaa idinka codsanaya waxay tahay in dhalinyarada i daawanaysa, gabdha iyo wiilal, in aad dowladdiina aad taageertaan, in aad bilicda magaalooyinkeenna aan soo faagno, sawirada aan soo gelino social media, dagaalka ayagu ay nagu hayaan mid la mid ah inaan annaga aan u dagaalano. ilaaha kugu dhaariye walaalkay macaan, walaashay ila fiiri sawirkaan. xilligan maa la taagan, sawirkaan si fiican u fiiri. xilligan maa la taagan, xilligan maa la taagan. xilligan oo sawirkan la baahiyey maa la taagan. arag in wiil imaaraadka joogo inuu sawirkan baahiyo uu dhaho asbaxa shacbu sumaal fi lmajaaca ta'amala ra'iis sumaal, inuu madaxweynaha soomaaliya u sababeeyo inuu gaajada iyo dhibaatada allah raxam yarxamhu munqadhum fi hada xaakim dhaalim, inuu farmaajo dhaalim yahay yaa u sheegay. adaa dhaalim ah, khaa'in iyo xunka ah. ilaha idinku dhaaray sawiradaa sawiro la baahiyey miya? arag arag gabadhaasaa waxay ku leedahay gabar magaalada muqdisho hadda sidaan ah, magaalada muqdisho maa sidaas ah, waxaasay baahinayaan gabar. arag arag, الرئيس الصومال
بقيادة تجارة تحد المواني وأنه يخلق إتراك الخضريين على بها في صلد أكاك. كيك لازم نساعدهم. يا هذه كلها رسالة مصورة لابد يكون كل يوم كها maxaa keenay inay sacadan ay baahiyaan bal ila arka waxay ku leedahay farmaajo out habaxa farmaajo waa gabar Dubai joogta marka asxaabtayana warka idinku daalinin waxaan idin sameeyey sawirkan ayaan idinku talagalay maadaama oo aan ololahaasi aan ku jirno oo aan rabno inaan dhanka meediyaha aan kala dagaalanno dadka sawirada xunxun waxyaabaha xunxun ka baahinaya dalkeenna inaan ka difaacano dalkaas waa wada leenahay Soomaali oo dhan wada leh waa wada degannahay walaa farmaajo aan iska lahayn walaa qof kale aan iska lahayn wadankaas waa wada leenahay inaan wadankeena aan wada difaacano oo si isku wada mid ah inaan u difaacano midda kale ku saartay cidda diidan farmaajo ma ahan dhulka inay diidan tahay farmaajo waa shakhsi waad mucaaradi kartaa laakiin markuu cadow uu la dagaalamayo asaga walaalkaaga cadow la dagaalamayo aad dagaal kale ugu sii daraysaa may waa ka qaboojinayna arinteena dib aan u dhiganaynaa arinta anaga aan u qabnay farmaajo dib aan u dhiganaynaa maxaa yeelay cadow kale meesha soo galay cadowgaas la dagaalamayna cadowgaas markaan tusno awoodeen iyo qalbiyadeena say u midaysan yihiin kadib waxa laga yaabaa inay 10 u noqoto madaxweynaha marka dhamaantiin waxa idin leeyahay jimco wanaagsan idin leeyahay sawirkaas idin soo gelinayaa insha Allah waxa idin ka codsanayaa si Soomaalinimo leh inaad sawirkaas dhamaantiin aad wada isticmaashaan wax magaca kuma soo qorayo sidaas ayuu cadaan u ahaanaa qof walba isticmaali kara aad u maasantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.